kala xukun qaadashada iyo guud ahaan nidaamka meesha ka socda wuxuu Warsame maalintaasi ku xusuustay baydad ka mid ahaa gabaygii Xaaji Aadan Axmed Afqalooc oo ahaa xarbaa lagu kasbaa gobonnimo laba xiniinyoode xukaan daacad iyo waxay rabtaa xaq iyo miisaane midba miduu ku xigo waa inuu ka xukun qaataaye caqligu waa xayaatada dadkiyo xaqa ilaahe ninkii ku xadgudbaa waa cadow dawladdii xaday Warsame isagoo ku dhaygagsan daawashadii ciyaarsiinta ciidamada oo aan dhaga iyo indho kalaba lahayn ayuu arkay dirir oo korkiisa taagan halkaas ayayna iska raaceen kadib markii ay salaan iyo iswaraysi gaaban si farxad ku dheehan tahay isu dhaafsadeen sheekadooda kale ka sokow intii ay u sii socdeen guriga dirir Warsame wuxuu arkay jidad iyo daara fara badan oo uusan magaalada ku ogeyn markii ugu dambaysay dirir ayaa duqa si wanaagsan ugu sheegay sida ay hawlahaasi u qabsoomeen iyo qorshaha kale ee meelo kala duwan haatan ka socda waxyaalaha looga sheekeynay waxa duqa ay ku beereen su'aal ah in reer magaalku ay wax iska dhisdhisanayaan una soo jeedin inay wax u qabtaan reer miyiga sida baahida ka taagan xagga daaqa dawada iyo biyaha xoolaha aragtidiisa reer miyinimo ka sokow guud ahaan Warsame aad ayuu amuurtaasi u amaaray wuxuuna u soo daliishaday mahmaahdii ahayd arad waa dan uskagna waa doqonnimo dirir ma garan ujeedada maamahdan ka dambaysay laakiin Warsame ayaa u fasiray oo yiri diriroo waqtigii gumaystuhuna haystay dhibaato kastoona qabataa waxay ahayd dan laakiin maanta waa ay dawlad Soomaali ah noo taliso haddaanan wax ka qabsan waa doqonnimo si wanaagsan ayuu dirir markan u gartay ujeedada mahmaahda wuxuuse jeclaystay inuu oraahdii duqa meel ka saxaa wuxuuna yiri Warsamo maxaad u tiri maanta oo ay dawlad Soomaali ah noo taliso oo aad u dhihi weyday maanta oo aan dawlad nahay Warsamana wuu qaatay ra'yigaasi isagoo cudurdaar ka dhiganaya reer miyinimadiisa raggii waxay socod iyo sheekaba hayaan waxay yimaadeen aqalkii dirir oo ku yaala degmada Hawlwadaag dirir wuxuu qabaa haweeney aad u wanaagsan magaceedana la yiraahdo deeqo waa afar reerkeeda ka adag raggeedana u garaba wuxuu dadku u aqoonsan yahay inaan lagu gaarin edeb iyo aqoon wanaag waxayse dadka hoos ahaan u sii yaqaan ay ku dhaliilaan inay si xad dhaaf ah ilmaha u disho marka ay canaananayso Warsame markii 2 maalmood uu nastay ayaa subaxii dambe wuxuu aaday nin kale oo ay walaala yihiin laakiinse laga wanaagsan yahay dadkuna ay ku tilmaamaan inuusan xilkas ahayn intii uu sii socday duq wuxuu niyada uga talamayay talow maxaad maanta kala kulmi doontaa ninkii isaga ahaa laakiin khayrsaadsigiisa ayaa badnaa oo wuxuu duqu maalintaas walaalkiis ka sugayay deeqsinimo aan horey loogu aqoon maxaa yeelay muddo dheer ayay ismoogayeen Warsame wuxuu intaa niyada uga sii luuqaynayay baydadkii ugu dambeeyay ee gabaygii Sayid Maxamed u tirshay markii uu yimid ina Cabdi Garaad Yuusuf oo uu aabihii horey abaal ugu galay baydadkaas waxay ahaayeen alankoodsha oo wiilkiiyo agab la'aan sheegan afka wuxuu ka dooniyo wuxuu uurka ka raba siiya ninkii loo ixsaan falahayaba iniq u dheereeya galabtii dambe markii uu duqii soo laabtay ayuu dirir wuxuu weydiiyay bal waxa uu kala kulmay ninkii walaalkood ahaa Warsame waxa uu su'aasha uga jawaabay isagoo xorta ka furfurtay ku tolanaya aqalka banaankiisa dirirna agtiisa kabihii askarta ku casaysanaya waxaana uu mariyay gabaygii Xaaji Aadan Afqalooc ee ahaa ninkii uurka ka nacay wajiga waad ka aragtaaye ag markii daymadaba waa lagu ogaadaaye inkastoo aqwaan kula yahay aad uur la tahay hooyo axmaqu waa cadowga hadduu aabbaha dhale dirir si wanaagsan ayuu u gartay inuusan Warsame xoolo iyo xushmo midna ka soo helin ninkii isaga ahaa umuurtaasna lama yaabin maxaa yeelay horay ayuuna ugu malaynayay intaas kadib waxay galeen sheeko kale dirir ayaana waxaa walaalkii Warsame uu sheegay inuu damacsan yahay in quraan loo aqriyo maxaa yeelay waxa uu yiri dhawaan ayaan ku guuleystay tartan aan xiddi ku qaatay raggii waxay isla meel dhigeen nidaamkii iyo waqtigii quraan akhriska waxay ku ballameen inay subaxa dambe u jarmaadaan suuqa xoolaha oo ay ka soo iibiyaan 2 neef oo ari ah subaxdii markii ay suuqa aadi lahaayeen ayuu dirir hurdadii ku raagay Warsame ayaa markaasi u yeeray gabar yar oo dirir uu dhalay oo ku yiri orodoo aabba hurdada ka toosi haddaba maxay fashay gabadhii yaray inta garbaha kor